horta magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Muraad baan ku magac dheerahay waxaan ku dhashay degmada Burco waarka Burcaan ku dhashay 1967 bishii August la oran jiray COVID-19 maalin Isniina ayaan dhashay dugsigaygii dhexe Maxamuud Axmed Cali baan ka baxay kii sarana Burcon baan kaga baxay malcamadaydii afar culimo ah oo burcadii hore waa garanaysaa aw Cabdi aw Xasan aw Maxamuud aw Axmed aw Maxamuud baan nolol kaga ogaay culimadaas quraankan ay soo dhigtay niman waxay ahaayeen aan reer Burco marka galbeed naga yimid إلهي سبحانه وتعالى كاد المعلم أن يكون رسولا إلهي علماء إذا وحي صادقتي قرآن كي صادقتين هجي جنات الفردوس الأعلى دقريقي كوهذا جامعة وقانون كي الشرعي لبدا صنبرت دقريقي لبا دقري بانقات ماستر دقري ومانيش من كدولك يسد الله معمول دقريقي لبادنا حقي شرعي أحكام تاني سجنا وحكا قرر دقريقي صد هذا PhD دنا دولك شرعي وحكا قبو هي قانونكم بان اسم مقارنيو لباداس بان كتاب كيغا يسوكين ولي لإيمة سلميني لكن بروفيسور كيجي أما مشرف كيجي ولي إيمة سلمين ومقادم PhD دي لكن تاسع وحكا قرر انت هذا halka kaga baxo degmadan waxaan maayir la ii dhaariyay 2012 December 15 maanta waxaan maayir ahay 8 sanadood iyo 6 bilood iyo 12 casho waxaan ahay maayirkii ugu muddada dheeraa maayiradii soo maray degmada Burco waxaan ahay maayirka kaliya ee labada gole muddo xileedkiisii dhamaystirtay ee qadarka Ilaahay aan dhicin awoodeyda kuma taagnin Ilaahay qadarkiisan ku taagnin inta haddaan halka kaga gudbo waxaan u gelayaa عدي أنا سو شقي أنا سو شقي لحظة صار هو الرئي عبدو عير هو قدام بيو برا صاب كمان تيار فرد وأنا سو شقي تضبط تلي قيبات هو الرئي تلي قيبات كنامان تيار فرديا وقنا ضمبيو إسلا إسحاق تودبدا تلي قيبنا وان لسه شقي عن دين سي شيء جيا ما أنت أديان ما هي شري يا هدان قبيه ترين شري لبده هو ذيك الديني عن كم بقية أفسومالبو وترماي إن لا يلاحظوا تلو مركان يولجيدي وأبتدينه وحصارنا ونسكنش وهذا لورنا يا علي السلام بيولجيدي تاني ولدك الديني أنت عندك هالك كجبحه دقمة برعو أنت ما يركاه ميلا بدن بوحك قبل أنت أنا مالها وحكي قبلني أنا الأجل إن يربان يسيب إذا يسيب بني حنايا
dhaqaalaha degmadu uu koobay aad buu koobay taa bedelkeedina waxa la idinka doonaya reer burcatihiin doonaysaa nimanka dhalinyarada inay fashilmaan waxa ku xisaabtamaysaan dhaqaalaha iyo cashuurta la idinku leeyahay ina bixisaan isla barbareeg taagtaan say wax ugu qaban lahaay waxaan kaloo idin dareensiinaya dhowr jeer inaanu ku tashanayno cashuurta kordhino oo haddana mar walba markaanu aragnay dadweynaha reer Burco oo u badan la oran karo 80% waa dad dan yara inaanu u turnayno aanu ku kordhino cashuurta waa ardiyada iyo waxaan ka qaadno mararka qaarkoodna waxaan buureen oo naf lahayn baan kordhin inta aanu gal wixii aanu qabanay walaha deegaankii maanta na bedelay maayar ku xigeenka na bedelay baan in dardaaran horeysiisanay halkani waa Burco waa dad caadifiya waa dad madaxdooda signalkooda eegta signalkiina la eegani aad iyo aad maanta kan fasto way idin haysa waxaan ilaahay idinka baryayn inaan ilaahay idinku kashifin saddexda laalaada in laalataan oo halkan maanta anagu dhignay aan noogu timaadeen ina ka qaadaan ayaan ilaahay idinka baryayna oo aydan ku kashifmin oo ku fashilmin wixii naloo ka baahdo aydan la barbar taagan hadalkaygaas munaafaqad ma aanay reer Burco maanta waa isbaranay dadka munaafaqada lagu xanto in aan ahayn markhaatiga koobaad aan isu furay abuu iska celiyaayo waa madax adagyahayo waxba ma maqlayo waxa soo dhan way tiraahdaan inkastoo marka tiraan waxba ma maqlo aan islee war waa kugu xaq daro أنا أقول فرح سنة إن يقول ديجان كوشرا شغاله دولة أوزك شغيني فرحان بالك يجسويجي وحنا هاي فرحان بايدين شيء جدونه كل دين نعس قف كأنه شقادة كوارك تو شقادة وقت مادين السوق سكوارك تانو وكال لبع نينك شقادة فردية ما هنينك كل فردية سوق كل فردية ما هكدوني هل كسوق مركب وذا فرديين كوذا شاهيسين sidii uu ahaa iyo macaamilkii idin ka dhaxeeyay xafiiska markaad ugu timaadaha ka doon kii maaha wax kale oo haya taasina waa wax kale ragay qiimeynay ninka suuqa joogay maxamed muraad la yiraahdo ninka xafiiska jooga ma taas waa taa hadalkaygaas waxa inta i gaarsiiyay waan inta u gaaray munaafaqad ma ahe waxaan idin ku dhaan sideedaas sanoodii 6 bilood xanooga soo baahataan waan idin garab taaganna annagu aan waxba idin kaga doonayn waayo Burco waa ku soo tacabnay ma ahayn muraado kaliya wax ka soo shaqeeyay rag baa ila soo shaqeeyay maanta garbahayga taagan oo halkana taagan shaqaali baa joogay ila soo shaqeeyay waxaan ku soo tacabnay tacabkaygaas inuu burburo ama khasaaroobo marrab waxa laga yaabaa mas'uuliyiinta qaarkood oo aqoontoodu gaaban tahay inay ku farxaan ninka bedelaya inuu nin isaga ka liito noqdo sidoo u soo baxay aniga taa si igu ma jirto tay igu jirta waxa weeye ninkan xilka u dhiibaya inuu aniga ay dhaamo oo wixii aan meesha kaga tagayna aanu baabiinin isaguna wax suntado oo yiraahdo anna waxaasan ku daray ولا deegaano cusubow alla guyow maxaa hawla ku sugay guyow maxaa hawla ku sugay waxaan idinku ducaynayaa ilaahay idinkuma kashifo Burco ma hawl yara nin khidmad in ka qaadaya cashuur ka qaadaya waa nin saakir gabraar tagayo deerir raadsaday ayuu soo heli
ma garanuug buu soo heli ma gorayuu soo heli miyuu soo qadi waxa laga yaabaa isagoo xiiqan waxba ka noolaan 10 qodxoodna mudeen inuu casarka gurigiisa ku soo noqdo salaada hore inuu gorayo helana waa suurtagal waa gabraar dawladda hoose gabraarta ilaahay idinku ma qadi idinkana waxa la idinka baahan yahay daacad haddii laga waayo cid kasta oo shuraaka oo isu daacada ilaahay baa dhex jooga haddii labiin ilaahay baa ku saddex maalinta daacad la idinka waayo qofba wuxuu u degan yahay halku daacad kaga tago daacadda gudihiinana ogaada waayo aragnimo aan soo taabanay wey sharci aan gaadhnay oo barannay wey shaqaalaha halkan idinla jooga maxamuud dhagalaab shaqaalihii igaga tegey dhaqan bay madaxdu leedahay markay meel timaado inay xoghaynta bedesho darawalka bedesho agaasimayaasha bedesho wardi ma joogtaa iyo maxamed baashi ma jooga darawalkii maxamuud dhagalaab igaga tegey iyo xoghayntii maxamuud dhagalaab igaga tegey yaan cabdirasaaq oo kugu wareejinay miibaan qabqabtaa miibaan darawal labaadoo miiga ii qaadaan leh maxamed baashe sidii maalintii isaga iyo gaariga la iigu wareejiyey baan weli wada soconnay saakana cidda aan shahaadooyinka halkan ku guddoonsiinayaa buu kowkayay agaasime meeshiisi aan ka bedelay ma jiro agaasime weliba halkiisii buu joogay ilaa waktigii isbedelay sanawaad kadib oo ragga qaar dani bedeshay uma bedelin waa dhergigii hore oo ina dhagalaab baa meesha kaga tegay waa ciidankiisii uma bedelin maahmaahna waaban leeyahay aan ku maahmaaho waxaan idhaha ninku hadduu hoosta eego hore uma socdo waxaa markhaati ii furi doono shaqaalaha inaanan shaqaalaha hoos u eegi jirin bal iskaba daawo bini aadam waana khalad badan yihiin khaladkooda inta badan waxaan qaadan kari waaye mooyaane inaan indhaha ka laaban jirin laakiin shaqa xumada kuma saamixi jirin duu shaqada xumeeyo ma dulqaadan jirin waxaa laga yaabaa isagoo ganaax xaq u leh inaan eriyo idhaahdo ka saar meesha uma dulqaadan jirin shaqa xumada shaqaalaha soo dhawaysta dhallinyaraatiin waaba islaaleegtiin qaarna way idinka waaweyihiin waa lala saaxiibaa in la saaxiiba hays odhanina ku xukuma qaleel ku xukuma hays odhanin way idinka badan yihiin hadday wax idinka tirsadaan doontaa badda maraysa bay saarantihiin 19 musbaal baa laga saaray anigoo uma hadnaqaya shaqaalahayga inta ila soo shaqaynay shaqaalaha la saaxiiba shaqa xumadoodana iska ilaaliya halkaasaan taana kaga baxay abtiyaashay baan kelmad dardaaran iyagana odhanay horta marka hore qofku meesha uu ka soo jeedo ee madax iyo mijihiisu ka soo jeedaan hadduu maago ama wax u dhimo waxaan u aqaanaa inaanu nasab ahayn isma seegenin marmar baan dee xisbiyada wax ka yar sheegaayo waa laga yaabaa inay ka yar gilgilataan meelaa taageeradeeda u badan tihiin intaasaa laga yaabaa inay igu yardiidaan abtiya weliba qolada jifidayda maxamed xasan u sheegayaa magtaan la bixiyaa oo magta ayaan la bixiya waxaan ahay nin abtiga wax weyn u yaqaana
waxaan ahay nin u yaqaana halkuu ka soo jeedo inuu wax ku yahay laakiin mid baan idiin sheegay halkan waxaan soo galay 22 xildhibaan baan ku soo galay qaar aan isku xaafad ka nimi oo maantana aan halkan ka wada baxayn ila waraabaa la yidhi war fool xumide kalabada iga yara dhidar la yidhaahdo haddaa aragtaan maxaa samayn lahaydeen buu ragga qaar haddaa dhali lahaydeen kaftankaa lidinka heli lah waxaslee laakiin aniga war laygu kiin caayi maayo la odhan maayo waxa noocaasaa dhasheen laydin odhan maayo war meel laygu kiin caayi miyaa laydin odhanayaa bahalkaa sigagarkaabaa dhasheen miyaa laydin odhanayaa dee war qofkaa adag baa dhasheen haddii la yidhahdo waxba idiinta ragaan xaafad ka wada nimi maanta haddii laydin xambaariyo waa ka xanaaqi lahayd inuu halkan aan ka hortegin maanta kuwaaba rag baa dhalay halkaana abtiyaal وأرضي حسبي لا كل يوم بان شقدي سيحان يجر كوير أتكو أنت أصين سكوهر نبيه وإذن وذا سامحي أنا كنا حفي اسمان إذن كذل بنا يهدا وحيقة ترستين إلا نلبى القبيل وحويل مدح معها ويل كملوا كلي تحي ويل كملوا كلي تحي رجوا إن المدونة شابود أبتجي وحي جي أما هدوء تام هديراتي تاسين وعفس وينقول كلا تجي إن حلكي عن دين هي كم واحد شعلها إنه شعل أو إس ممكن إنه كلا تجني إنه علاش وعيسوق إنه كلا تجني مشعل أبتياشن وشعل أبتياشن كسكتي labadan inaan maanta meeyarkii meeyarku xigeenka inuu dooran waxay ka soo bixin xisbi mucaarad meeyar iyo mucaaradna shaqo isku male xisbigiina waa ahaanaysaano sharcigaan idin ogolaynba ina ka baxda laakiin dawladda la jaan qaado haddii meeyar iyo meeyarku xigeen iyo golo deegaan uu dawladda aydan la jaan qaadin wax idin soconaya ma jira xisbigaaga iyo siyaasadaada hayso laakiin وأنا الحريف نقطة على بدن لا أنا هو دولتي أنكتر سنة يحس بيجي أنكتر سنة وأوجيدين مرة كقار كنت تنتي في جوسو فرسين كنت دقيقة معه يعني سكون ما جينا وحاي هاي وحوم بدوني برحوم بوحدوني لفاهي وحبوم بدوني هذا قول ديجان تيني هذا جودي فلنتين مير كحجين حسبيدين إذن كاكسو بحي إذن كقوي مايان لكن مربع معمول كدولة عدة هايسة حسبك قعنت كوهيا إن لا تفاعشان أو الله شقيستان والشيء أن لقد بكر هنا أفريقيا هل كان يجوعنا وأفريقيا وعام قواني إلى هنا لقبت كو أو قدنا برعو ضبضم إسماعيل هين ضبضم إسماعيل هين برعو صحيح كما قاري قوري كستادو قبتو بويده هين دون جرني عيد بينكم يسجني بالدي بيا بينكم يسجن waxa ugu horeeyaan ku faanayna waxa weey waan ka xumahay halkan inay maanta joogaan beehay dabdamiska halka degan haday noqoto baabuurta ay wataan oo aanu iibinay haday noqoto goobta ay ku jiraan oo aanu madaxweynaha ka codsanay oo nasiiyay haday noqoto shidaalka ay ku shaqeeyaan haday noqoto isbeer baarka ay baabuurta aanu gelino halka dawladda hoose degmada Burcaan ka bixin waxa ugu horeeya ee aanu ku faanayna waa dabdamiska sameyntiisi xero u sameyntiisi gaadiid u iibintiisi baabuurta qaar baan $50,000 siin qodobka koobaad waa taa casaynta yar saaka lala kala hayo ayaan xitaa bixinaa saladan dumarku ay la kala lahaan
حتى تاسان بحنا وحي وحلو لو سو سينيو سبحي قدي قرعدي عشرة راشنك توتال وحول بقول كي وسقاش ما نخرج كذا قلنا طبعا ومشهر كجنة ده أيه برجير كلاقي صوبر هذا واحد كوبا ده أنا كفانه هل منيت بقولي كسوق بتاع ما لو منيت بكم مقنيه قاري قاسمانت وإنما هي جنا ربعي إنما ذا هلقى ورحي مشاهر كودن وجابين شقاء ذاك نوي هيا هلقى ورحي دولتنا هو سيدك ماذا برعو محمود دق الله هل كان واحد تاجنا وعلك اللي يقول يجيني لبعتن كي ديسمبر لبعض كن يلا بيا طبنك مالين 4 خميس تنون سو شقتي أنا قولي بقى وليها waxaan ku dhaamaay iminka halkan joogay cusub nin dawladda hoose ka dhex shaqeysta oo magaalada dhulka ka shaqeeya oo guryaha dhisa oo subax walba taagan baan maalintii xilka la igu wareejiyay halkii ay taagneed wixii aan ku dar halkii ay taagneed ka hadli mayno laakiin wixii aan ku daray ma ka hadlay waana dadaalay nimanka naga horri ميركي محمود دغلاب يكو خيغينكيسي ugu dambeeyay Axmed Cabdi Falay way dadaaleen waxaan soo gudbinaya sidii meeshan aan ka dhigno xafiiskayga kan buuha hool yar oo koobayna halkan buuha si ilaahay wax yiriba aki dumay reebro markayna xamanay waxay dhaah ولا ديجان كوي شن شهر إسكو داريينه دارتي بدميسي إلهي قدر كيسو كدمي أكيد كدمي قولي أنت اللي قروح ضبطن إن لو كحريو أيام بس وأسد الدولة ده سلده أولو فرحك حفيظة ما أنت أنا كشقينا وسير السمال اللان حفيظة أي ليهين أي لمدهين أما قاركود بك قروح بدين waxaan halkan ka qabanay xarunta dawladda hoose xafiisyada oo aan rehabilitation ku sameeynay dhamaantood waxaanu ka qabanay geedka aragtayna quruxda badan leh ee koona ilaa koona aan ku soo wareejinay barigan geedka sameeynay waa kii yaraay hoose mitriya barkaana waa ku hoos jiraayo markaas nimankan imika sameecada ay haya waxay soo qoreen ما يركب برعو لبا دير سميستي بينا لبا قيد اسكو وريجي قيد كا قروحدا بدلنا وان ka sameeynay meeshan ilaahay baa subhanahu wa ta'ala wax kaga doonay waxaanu kala sameeynay waxa meesha dhir ku taalay aragtaan quruxdeed injineero ku takhasusay agriculture ayaan ku siinay contract waxa aad dhir arkaysan baan ka bixin qaar baan ma kaysiraahdaa halka hadii libaax galo laga soo saari maayo meeshan aad joogtaana hugaaguna uu kula baryo tagaay inaad halka aad wax ku xukumayso halka aad ka shaqeynayso inaad iska hagaajisaa waa fiicanta qodobka ugu dambeeyay aanu ka qabanay halkan waxa weeye wadada yar aan ku wareejinay iyo marmarka halka aanu dhignay yaan isleenahay isha ayuu u roon yahay dawladda hoose gudaheeda intaasaan ka qabanay si aydan u daalin waan soo koobay gaadiidka aanu iibinay intii xilka nala ku wareejiyay ilaa maanta gaadiidka aanu iibinay waa 35 gaari weey shaniyo soddon gaari waxa ugu baahi badnaa isbreeyir kama booyada daamurka shubta ee waxa soo wadaa inoo sameysay oo aanu ka dirnay China aanu ka dirnay aan ahaynba mid mustacmala baan ahay iyo afar muxuu ahaa cagaf saddex waaweyn iyo mid yar oo iyagana warshada aanu China ka diray aan mid la isticmaalay aan ahayn waxaanu iibinay iskaragooyinka koob iyo 10 iskarago
oo cusub waan kuwii hore ku biirinay waxaanu iibinay 2 wiish waxaanu iibinay booyad biyood leeyla calawiyada maalintan xilka la wareegay anigu gaarigi maxamuud dhagalaa maalintii xilka la wareegay iibsaday oo 7 sano shaqeynay baan la wareegay inkastuu wali shaqeynayo oo aanu aad u ilaalin ku xigeenka iyo xogayuuna laba seeraf bay watay arsaanka ma sheekh albeled laba seeraf bay watay seerafyada de tuulooyinka haydhalkooda seerafyada ka haysta waxaanu iibinay 6 gaari oo leeyla calawiyaa maayar cabdirasaaq waxaan ku wareejinayaa 2 gaari oo midufeed yahay oo baabuurta madaxweynaha weeg yahay oo halka ku jira oo bari dhawey maxamed baashi intan xildhibaan siiyey oo cawarmay oo shaqo u baahan waxaan kaloo ku wareejinayaa gaari leeyla calawiya oo cusub oo baro xogayaha iyo ku xigeenkuna 2 leeyla calawi oo cusub bay wata 3 keen waanu iibinay 6 leeyla calawi baan iyagana iibinay xagga noohooyinka 8 gaari oo noohooyin oo kuwa cashuura ka shaqeeya ayaan iibinay waxaanu iibinay 2 bas waxaanu iibinay booyada daymarkiis bareerka bilo ku jiraan qurmaan ma xasuusataa maanta wada magaalada bartankeeda biyo ku qurmayaan miyaa garanaysaa u malayn maayeen garanaysaa waxaan magaalada ka sameynay wadooyin fara badan qaar waa carakaaw shaqaydin ka baahan qaarna waa wada caadi oo la maro waxaan ugu horeysiinay wadada magaalada dhex marta 4 kilomitir iyo bara roogaan ku sameynay ayaa ugu horeysay wadada hodan qaylo 3 kilomitir ah in kamid oo dhowr boqol oo mitir ahina ay bilaa daamur tahay inta kana daamur leedahay wadada Oktoobar wada aad u ballaarana waa wadadii Maxamed Xasan Jaamac Xoday wastaadka gacanta loo sii daayay soo maqashaan wastaadka waa wadadii aanu ku siinay shahaadada imikana uu ku shaqatay karaya inuu wadooyinkiisa karay Maxamed Xasan Jaamac wadada dhisay Oktoobar quruxdeedu waa idinka arkay waa wada ballaaran marka la isku celiyana oo 3 kilomitir aad bay ballaarantay aad baana u dheertahay carakaawadeeda oo kaliya $100,000 wax ku dhawaana la ka qaado wadada garoonka kubadda cagta Con Stadium wadayaro gaaban weey laakiin waxaan wadada halka u saarnay waa dhulka biyuhu ay ku qurmi jireen bay ahay xilwaanada qaar ba xaafadoodu yihiin garanay walaa 150 mitir deera bridge wadada in iyo outka iyo taxaga shay u baxday shina kaare oo 1 kilomitir cadaan ila afgooyo 1 kilomitir wadadan talisom hormarta iyaduna wadada ugu xun bay ahayd magaalada ee biyo fariisan jireen 700 mitir weey wadada afgooyo ilaa ina qulumbe oo 600 mitir ah wadada Dhoomagaab Farbasiga Cabdi Aw Daahir baa u taqaaniin yesterday people waxa uu yaqaanin Cabdi Aw Daahir laakiin qoladayadii hore udheelka dameerley marnaa udheelka dameerley dugsiga Cabdalla Nuuri ee dugsiga dhaxaa masaajidka badabada 450 mitir inta wadooyinka yaryar inta ku wareega aragteen way laamiga qasabka oo aan laami cusub ka sameynay khadraa ku riday baa laamiga jacaylka loo oran jiray saacan kama wadayaash waxa loo oran jiray laamiga jacayl nin loo oran jiray khadraa ku riday baa noo sameeyay 1971 wadadana wada qurux badan baan ka sameynay laamiga laba qow Sheekh Ismaan Nuur saalixiyada wadooyinka halka isku googooya oo iyaguna 500 mitir jaamacadda Burco 1.25 1.25
2050 hal kiiloomitir iyo rubuc jaamacadda Burco waa aragtay ninkii wadada qandaraaska siinay in badan baan isku karaama seegnay laakiin wada wanaagsan buu ka tagay anigoo leh wada ma sameyn baan isku karaama seegnay Cabdirasaaq ninkii loo oran jiray injineerka waxa ku xigay laamiga awal suqaar laga bilaabay ilaa Jarmalka taga dhileetan loo oran jiray oo u mahadnaqayo ayaa wadada noo sameeyay wadada aad qurux badan kan dhaleedka wata hormarta laamiga dawladda hoose ilaa Jarmalka watan dhinaceeda marta indha deero iyo ilaa iyo farmasiiga shifa la yiraahdo inta yari warwareegta 250 mitir boqolay 800 oo mitir wado aad qurux badan oo mahadnaqay Cabdi Qani waliba uu ku daray DD ku daray iyo waxaanan u diran oo keerbisidii uu hagaajiyay laamiga cali gadle 350 mitir laamiga saylada wado markan halka marayo subaxii saylada aan qabto yaa waxa oran jireen dilaalintu halka in muraado ma lacag u soo doonataan maxaa wadada nooga sameyn weydeen wadada waa sameynay wado aad iyo aad u qurux badan ayaanu ka sameynay 3 kiiloomitir isku celcelis way 100 mitir baa ka dhig laamiga gaha oo isaguna 1 kiiloomitir waxa ku xiga wadooyinkan inoo qabyada ah iyo bridge-yada waa markii ugu horeysay bridge weyn dawladda Burco ay ka sameeyso argaawada wadada cuqubo oo kiiloomitir ah oo u baahan in la sameeyo iyo arkaawada wadada jaamacadda Najeex 3 kiiloomitir ah oo iyaduna u baahan in la dhameystiro bridge-ka Elgooni oo intaan injineer Faarax Xuseen kontract ku siinay daadkii wax yeelay oo isaguna maanta u baahan in wax laga qabto bridge-ka saddexaad fayskii hore lacagtiisii injineerku waa qaatay kaabadii buu sameeyay waa soo xiray ina tagtaan oo fiican tahay lacagta baaqigii harsanaa ayaynu ka doonaynaa madaxweynaha qaranka innagana waxbaa la inaga rabo wadooyin badan baan banaynay oo ka mid tahay Waraabeeye Nasiye wado aad loogu dhibanaa meesha oo aan labada magaalo isu banaynay waxa iyaguna jirta degmada Reeraha Qoyta oo mashruuc biyo xidhisa oo biyo lagu xirayo aanu ka sameeyay halka hadaan uga gudbo waxbarashada ayaga waxbarashada filiyo maysaan waxa halka noogu qoran inta iskuulaan wax ka qabanay waxaan idinku horeysiinaya dugsiga sare horta waxa jira ardayda secondary-ga ka dhigata meelaha magaalada ka fog inaan u iibinay baabuur waxaan ugu kalifay ardaygu wuxuu ka imanayaa Koosaar ama Yurowe Aadan Saleebaan Ali Xuseen Burco imanaya secondary-gu ka geliya hadana kawdu halka ka lugeynaya laba gaari baan u sameeynay markii dambe waxaan waraan meesha fasal loogu sameeyno qaadisan marba la soo qaadiyo la sii qaadiyo arday ayaga laftigooda waa ku dhib waxa maanta aan xariga ka jarnay hadda intii doorashadu soconaysay Yurowe Secondary School oo afar fasal ah waxaan sameeynay goroyo xunta sare oo 3 fasal ah guriyo samo oo aan contribution ka geysanay xaafadan guriyo samo la yiraahdo aan contribute garaynay oo 3 fasal ah daahir ogle oo 2 fasal ah magaalada la yiraahdo Labiguun gaar baa la igu yar xanta halkaasi oo iyaduna 3 fasal ah oo magaalada aan deganahay aan idin cadeeyay xaafada Ali Xuseen hal fasal baan ku kordhinay Soofi Ismaan Deyr baan ku xidhnay iskuulka la yiraahdo naqa 3 fasal degmada Nasiye 4 fasal Haqaya Malaas hal fasal Sheekh Ismaaciil hal fasal macadka la yiraahdo Sheekh Axmed 4 fasal waxa inta noo raaca macadka la yiraahdo Dr. Gaboose oo isagana aan qalabaynay ilaa 28 fasal yaanu xagga waxbarashada ku kordhinay adeegyada kale waxbarashada wixii aanu ka qabanay mushaharaadka shaqaalaha hoosaadka oo kilinisoonkii waashmaanada 150 shaqaalaha oo aanu bixino 3 qaybood dawladda hoosana qayb bixiso
hay-aduhuna qayb bixiyaan UNICEF muxuu ahaa wasaaradda waxbarashaduna ay qayb bixiso qaybteeda ayaan bixina waxaanu gunno siinaa 50 maamule dugsi ayaanu gunno siinaa waana barnaamijka la yidhaahdo maamul daadejinta waxaanu bixinaa qalabka iyo kuraasada iyo miisaanta dowladda hoose degmada Burco ardayda dhigata Cali Xuseen Aadan Saleebaan Koosaar iyo Yurowe waxay u samaysay basas subaxii soo qaada marka baska iyagu xun yahayna basas kale ayaanu shidaalka ugu shubnaa oo ku soo qaado dowladda hoose degmada Burco waxay taageero dhaqaale siisaa jaamacadaha Burco iyo Najaax dugsiyada agoomaha Al-Xarameyn iyo Umar bin Khadaab lacag bilaa baa la siiya sidoo kale dowladda hoose waxay kaabis dhaqaale ku samaysaa maxadka Sheekh Axmed iyo maxadka maxadu sunnay ayagana kaabis dhaqaale oo bilaa ay siisaa dowladda hoose Burco waxay kaalmo joogtaa siisaa dugsiga hablaha agoomaha ah ee la yiraahdo Tabantaabo oo waliba iyaga waxaan ugu darnaa shidaalka dheeliga inaanu iyagana aanu siino waxa aan u iibinay wasaaradda waxbarashada gaari nooha oo cusub oo aan ugu tala galay ama aan u iibinay in uu kormeerka dugsiyada hoose dhace uu ka shaqeeyo waayo gudoomiyahan ka horeeyay Maxamuud Xasan Caynaasha noo yimi oo yiri kormeerayaashu way lugeeyaan sida awgeed baan gaari isagana aan ugu iibinay dowladda hoose degmada Burco waxay qalabaysay 3 fasal oo maxadka Dr. Gaboose oo aan qalabkiisa u dhameystirnay dugsiga agoomaha urta heegan la yiraahdo ee xaafadda Aadan Saleebaan ku yaala dhulka uu ku fadhiyo oo dhan dowladda hoose ayaa bixisay waxaan ku faanayaa maanta aniga iyo golahayga deegaanku inaanu Burco wax u barnay 4 doctor oo caafimaadka dadka ka shaqeeya oo jaamacadda ka qalin jabiyay oo waliba 3 ay hableeyihiin oo maanta 4 waa shaqeynaya si gaar ah baan 4 dhakhtar ee aan ilaa maalintii ay bilaabeen waxbarashada ilaa iminka ay dhameeyeen ilaa qalin jabintoodii aanu fiiga ka bixinaynay oo maantana inoo shaqeynayo hableheennii waana 3 hablood iyo wiil aan aad u sii faanaya 4 doctor waxba muhiim ah in magaceedu halkan ka sheego 3 inay hableeyihiin iyo hal wiil 4 doctorna annaga ayaa jaamacadda Burco ka soo saarnay oo fiiga 6 sanadood iyo kharashaadkaba ka bixinay waxa kale oo aan fiiga ka bixinayna arday shaqaalaha dowladda hoose oo aan ka bixinay digriigii koobaad iyo kii labaad inta baanu ka bixinay waxa iyaduna fiiga aanu ka bixinay jaamacadaha heerka labaad iyo heerka koobaad iyo heerka saddexaad culimada qayb kamid ah oo shariicada ku takhasustay waxaan maanta wareejinaynaa dhul danguuda oo 170 baloor ku dhow oo qaarkood magaalada gudaheeda yihiin toonka magaalada yihiin aaga aadan garas Saleebaan ku laabtiisa muxuu ahaay xaafadii hore la oran jiray xiriig la oran jiray 168 baloor baan wareejinaynaa oo aan ugu tala galay in danta guud saldhigyo muxuu ahaay MCHyo dhaktaro taana waan wareejinaynaa xoghayaha golaha fulinta ayaa jooga isagana si gaar ah hawsha uga mas'uul adeega caafimaadka kaas waxbarashadii buu caafimaadku waxaanu ka qabanay waxaan malayn maysaan hayga caajisina waan idin soo wado waxaan ugu horeysiinayaan ku faanaynaa hospitaalka hooyada iyo dhallaanka ee aanu u duminay 40 guri oo dowladda hoose leedahay baan duminay maanta Dr. Maxamed Yuusuf uu naga raagay oo halkan fadhiya maalintii u dambeysay 50 milyan ayaanu geedka u baas gareeno siinay waa qabiyoobay 50 milyan baa ayaa uu ku qabiyoobay intii lagu dhameystirayna Dr. Maxamed Yuusuf waa ka halka fadhiya isaga keenay dhakhtarkaasi waa 40 qol waxa yaala qalab aan dhakhtaradeenna oo limba yaala haday tahay kuwii wadnaha
hadday tahay kuwii ubacday iyo muxuuha saableyda waa dhakhtar standardkiisu yahay standard caalamiya si gaar aan ugu faanayna dhakhtarka inaanu ka hirgelinay degmada Burco oo aanu idin sameynay oo maantana shaqeynayo oo caruurtii iyo dhallaanka hooyada uu gaar u yahay ma jiro magaalada dhakhtar dawladii leedahay oo hooyada iyo dhallaanka u gaari ma jiro si gaar aan ugu faanayna waxaan sameynay 4 MCH oo casri ah 4 MCH hal MCH baa si gaar ah iigu mudan waa degmada la yiraahdo Kalbare min waraayil jibaal bay ku taala halkaas aanu ka sameynay waa meel baabuurtuba ay aan geli kar qof dad muraad u leeyahay baa taga waa MCH casri oo qurux badan kaasi waa koow riyo xidho kaamid leeg baan ku sameeyno qurux badan nasiye iyo Kalbare waxa ku afara xanaanada cusub ee October aan ku sameeynay waxa iyadana aan sameeynay baro caafimaad sida waxaana yiraahdaan dhaqaatiirtu healthy booska oo tuulada xood aan ka sameeynay intaas waa inta anagu aan sameeynay dhulka ka qaadnay intii aan dayactirnay ama wax ku darnay oo ilaa dhowr iyo 10 waxa ugu horeeya Yurowe iyo Harada Goroyo Xunto Sare Koosaar 27 May halka uu bixisay samariye iimaan aadan Saleebaan Dr. Yusuf Farax Omar Dr. Alag iyo Burco Center koob iyo 10 ka xanaan rehabilitation man ku sameeyay afar anaga sameeynay koob iyo 10 waxaan ku sameeynay extension iyo rehabilitation adeegyada kale caafimaadka aan sameeynay baan idin bilaabaya waxaan bixinaa 930 adeegyo caafimaad baan mushaharkooda bixinaa waxaan bixinaa qalabka nadaafada waxaan bixinaa biyaha iyo leerka xanaanooyinka MCH-yada waxaan bixinaa taakuleynta isbitaalka guud waxaan iibinay gaari ambulance ah dhul banaan bay isaguna jira oo beerta aadan garas agteeda ku yaalo aan ugu talagalay xanaan laga sameeyo 8 bilood baa jira oo kale oo beerta ilmo dhowbana ku yaala oo iyagana aan ugu talagalay in xanaano iyo MCH laga sameeyo caafimaadka halkaas aan kaga tagay meeyari waxaan u gelayaa suuqyadii sariibadaha aanu gelay sariibadaha aanu sameeynay waxa ugu horeeya sariibada xaafadda Maxamed Cali Saylid oo wada garanaysan baan mareynay waxaanu sameeynay sariibada cusub ee xaafadda October waxaanu sameeynay oo casriyeyn ku sameeynay sariibada gaha la yiraahdo waxaanu sameeynay suuqyada ganacsiga weeyaane 3 mool oo aanu Burco ku soo kordhinay moolka Sheekh Bashiir ka Women's Club-ka 3daas mool Burco ayaan ku soo kordhin maantana quruxna way tareen baayamisirkiina waxbay ka tareen waxaanu sameeynay oo hirgelinay oo dhamaystirnay oo maantana aanu shirkadii kalluunka ay ku shaqeysanayaan markii ugu horeysay sariibad kalluunka lagu iibiyo sariibada gaha la yiraahdo dhinaceeda guriyada dawladda hoose sandaqadaha ahaa ee kirada aanu ka qaadan jirnay ayaan intan baabiinay sariibada kalluunka aanu ka sameeynay waa markii ugu horeysay sariibad kalluun aan Burco ka sameeynay waana functional wax shaqeynaya weeyaan dadku maanta waxaan isleeyahay 40% bay kalluunka cunaa waxaan dhamaystirnay oo kontraagiisu naga horeeyay oo laakiin anagu sanawaad kadib aan dhamaystirnay kawaanka cusub ee Burco kaan intaasan kaga tagay waxaan u meenay waa gabagaba hadaalin nabadgelyada aan idin horeysiyo nabadgelyada Burco golaha deegaankay dhex taala saaka saldhig dhaqaaqaya gaari saldhig joogo